inaan caradii goobtiyo curadii dhaqankiyo fankay maxaan ku caloolsamaa waliba ka jeclaa cindiga inaan cakusoo dhigoona carfiga lay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دا قيمة قدرين تيغا مدنو ميل كستو دافها عالمك كغنو شايسي كستادي داوان هسبا وعانو وناكسن حتى تا كلن كاغو غورتسو بقتا جننغ وحان كاادسانينا سبسكرايب تي سارتا سينا شير غريسو لايك تناساد marka aad nuxurka hadalka soo bogato fadlan maami inaad comment caafimaad qaba wixii fikirkaaga aad xaqooso igula soo wadaagto ayayo wixii cusub iga warayso waxaad maqashaan ka fiirso saacadii la soo dhaafay baraha bulshadu ku kulantay waxa si weyn u haysatay hadal haynta miswool taas oo Hargeysa lagu xiray hadaba lama xaqiijin karo sababta ka dambeysay in la xiray iyo halka lagu xiray iyo halka ay ku sugan tahay iyo waliba saldhigga lagu xiray hadaba dad iyo badan oo dhun daro kuwaas oo iyada ugu dhow ayaa sheegay in xabsiga loo daxaabay hadaba dad iyo badan ayaa isweydiinaya inamada kale ee ku sugan sida Baabujey iyo waliba Abaabala maxay kaga duwan tahay miswool ee iyada loo bartilmaameedsanaya ama la xiraya hadaba dad iyo qaar ayaa sheegay in si luga ku soo gashay iyada waliba dhinaca jijiga ka soo gashay miswool oo hadda ka hor lagu celiyay airportka Cigaal International Airport halkaas oo ay soo ku sugnayd markaa gudihiisa oo cigaal ay soo gaadhayna halkaas oo dadii qaar sheegayaan in aanay siin fiisaha dalku galka balse ay seetay waraaq sababta loo celiyay inay ahayd inay soo martay sharciga iyo waliba siyaabaha lagu soo galo Soomaaliland hadaba dadii badan ayaa isweydiinaya sababta ilaa hadda ay u xiran tahay hadaba dadiyooga commentiyada iyo waliba hadallada is dhaafsanayay baraha bulshada saacadii ugu dhow ku loolamayay ee waliba labada dhinac la kala safnaa ayaa sheegay in meel reer tahay balse halka dadka kala qaarna ay sheegayeen in aanay shuruudaha iyo waliba sharciga soo buuxin kuwa soo sheegaya in ay tahay nidaam la wada maro halka ay dhalinyarada kale ee imika Hargeysa ku sugan ay soo wada mareen nidaamka iyo sharciga balse aanay miswool soo marin taas oo daaqada ka soo gashay markii dambana waxa ay ku soo gashay Soomaaliland markii horena may soo qaadan waraaqda dalku galka ama fiisaha loo yaqaano ee ogolaanshaha inuu wadanka soo gasho hadaba dad iyo badan ayaa isweydiinaya maxay miswool uga timi waraaqda balse maxaa sababay inay soo lugayso maadaama markii horeba loo diiday hadaba waxa ay wada socdaan waliba xiriir dhow ka dhaxeeya isaguna TikTok caanka ah ee loo yaqaano ay xiriirka dhow la leedahay miswool ee loo yaqaan Haykel kaasoo isaguna kula sugnaa halka hadaba dad iyo badan ayaa isweydiinaya sababta ay u xiran tahay ilaa hadda balse ay dadka qaar leeyihiin sababta ay u xiran tahay waxa weeye inay soo martay dhulka balse aanay ku soo gelin wax sharci hadaba dad iyo badan ayaa isweydiinaya kuwa commentiyada waliba is dhaafsanaya ayaa lahaa waa wadan Soomaaliyeed waliba aan lagu soo gali karin fiisa maxaa sababay hadaba sharciga iyo nidaamka uu yaala Soomaaliland ayaa ah in qofku uu ku soo galay fiisana uu kaga bixi karo hadaba dad iyo badan ayaa isweydiinaya ilaa hadda meelaha sartu ka quruntay iyo meelaha ay wax ka xumaadeen hadaba dad iyo kale ee u dhun daloolo kuwaas xoogaalka u haanuureysna ayaa sheegay in aan gabi ahaanba aanay soo buuxin shuruudaha looga baahan yahay qofka in wadanka soo galay taas oo ah inay soo qaadatay fiisa balse waxa ay soo martay xagga Itoobiya iyadoo ay wajahaysaa u soo gashay hadaba dad iyo badan oo u dhun daloolo ayaa sheegay in aanay soo